مرحب مرحب يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، مرحب مرحب يا رمضان، ويا مرحبا بك يا. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأعزاء، sidaan rajeynayno caawa waxaa la rajeynayaa inay noo bilato bilshii kheyrka badneyd ee bisha Ramadaan. Allah ku mahadsan inuu anagoo caafimaad qaba Ilaahay nagu soo gaarsiiyey. Allah inaga dhigo kuwa kheyrkeeda ka faa'iideysta oo loogu dambi dhaafo. maxaa yeelay nabigeena wuxuu leeyahay bisha Ramadaan kheyrkeeda qofkii laga hoojiyo waxaa laga hoojiyay kheyr oo idil. yaa baaqiya alkhayri aqbil yaa baaqiya alsharri aqsir. midka kheyrka doonayo soo qaabil, midka sharta doonayo gaabso. marka sidaa darteeda bishaan qiimaha badan ee acmaasha bini'aadanka qabto kuwada ugu wanaagsan ka mid ah, fursado badan ay ku jiraan ee Allah ina soo halaalsiiyey. waxaan rajeynaynaa Ilaahay inuu naga dhigo kuwii ka faa'iideysta oo caafimaad iyo kheyr ku dhammaysta. yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun. Allah subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay duulkii alla iyo rasuul rumeeyeen oo iimaanka laga helo waxaa korkiina lagu waajibiyey soon kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun. si loogu waajibiyey ummadihii hore idinka horeysay, waxaad mudan tihiin inaad alla ka baqsaan oo dhowrsataan. bisha Ramadaan waa bil qiimaheedu aad u badan yahay. qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu leeyahay: man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembihi. qofkii bisha Ramadaan u qoma ee sooma xaal uu asigoo iimaan leh. maxaa yeelay bisha Ramadaan waxaa sooma oo keliya qof iimaan leh, al-iimaan ah oo muslim ah. qof gaal ah ma soomo. waxtisaaban asigoo ka ajar ka xisaabsanaya ama ajar ka dalbanaya alla rabbigiisa, gufira lahu maa taqadama min dembi, waxaa loo dhaafayaa dembigiisa kiisii hore. marka bishan Ramadaan kii kheyrkeeda ka faa'iideysan laga dhigo. sidoo kale waxaa wanaagsan acmaasha wanaagsan oo dhan in lagu dadaalo. qofka bini'aadanka mar walba kheyrka waqti ma lahan iyo wanaagii alla ka baqda. Allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay: wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin. allahaaga caabud intay geeri kaaga timaanayso. marka cibaadadii alla ka baqa mar walba waqti maxduuda ma laha, laakiin opportunities iyo fursado Ilaahayna siiyo iyo ummadda inay kaga faa'iideystaan ugu talagalay. bisha Ramadaanna kheyr badan uu ku jiro. bisha Ramadaan waa bil cibaadaadka in lagu dadaalo la laazimay ay qurux badan tahay, sida qur-aanka kariimka. maxaa yeelay waa bisha qur-aanka la soo dejiyey. inta badan waxaa dhacda dhalinyarada waxyaalaha maalayacniga ah inay ku mashquulaan sida dhaadhuuga iyo turubka, oo inay ka taxadaraan loo baahan yahay. maxaa yeelay waa bil nabigeena uu noo sheegay hadduu Ramadaanka soo galo in albaabada jannada la furaayo, albaabada naartana albaabada la iskugu dhufanayo, shayaadiinta waaweynna silsilad lagu xirayo. marka shayaadiintii maadaama laga xiray, waxaa loo baahan yahay nafsadeena inaan xakameyno. bisha noo noqoto bil tajarubo ah, cibaadaadkan ku dadaalno si inta dhiman bilaha kale aan ula qabsano. inta maalayacni aan ka faa'iideysan aan ku dadaali lahayn ama aan waqtigeena ku bixin lahayn, waxaa ka qiimo badan qur-aanka kariimka inaan aqrino. maxaa yeelay rasuulkeena wuxuu leeyahay: man qara'a xarfan min kitaabillahi falahu xasanatun walxasanatu biashri amhaaliha laa aqulu alif laam miim xarfun walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wa miimun xarfun. qofkii xaraf ka mid ah qur-aanka aqriya
wuxuu leeyahay xasano ama ajar. xasanadaas walxasanatu biashri amhaaliha, xasanadaas u dhigmata toban laabkeeda. laa aquula alif laam miim xarfun, nabigu wuxuu leeyahay ma oranayo alif laam miim waa xaraf, walaakin alifun xarfun, waa alifku waa xaraf, walaamun xarfun, laamku waa xaraf, wa miimun xarfun. alif laam miim oo 3 xaraf ka kooban ayaa waxaa ku helnay 30 ajar. ka waran qofkii jus aqriyo, qofkii jalaad aqriyo, qofkii intuu kari kara aqriyo, kamuu ka faa'iideysan karaa. marka 1 hour aan malayacnigaas si aan ku kadseemano adduunkan yar aan ku kadsooman, waxaa noogu khayr badan ajarkaasi iyo fadaaishaas inaan ka faa'iideysano. sidoo kale waxaan wax ka tilmaami doonaa sunooyinka la jideeyay bisha Ramadaan. waxaa qayb ka ah tacjiilul fitr, afurka in la dejiyo. xadiis uu warinaya can Sahal ibn Sacd radiyallahu anhu anna Rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam qaal laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajaluu alfitra. saxaabiga Sahal ibn Sacd ayaa warinaya, wuxuu leeyahay rasuulka alla wuxuu yiri laa yazaalu nnaasu bikhayrin, bini aadanka kama zuulaan khayr, maa cajaluu alfitra, intayba dedejinayaan afurka. marka waxaa qurux badan ama sunnada ay tahay in la dedejiyo afurka. sidoo kale xadiis kale oo xadiisul qudsi ah, Allah wuxuu tilmaamaya, wuxuu leeyahay qaala Allahu azza wa jalla axabu lcibaadi ilaya, adoomada xaggayga waxaa lagu jecel badan yahay ajaluhum fitran, kuwa dedejiya afurka. marka inaan dedejino afurka noqdadaasaan ku baraarugna aad ay u fiican tahay. sidoo kale bishan waa bil sadaqo, bil acmaasha dhan wanaageeda intii hore aad kasii kordhinaysa. maxaa leeyahay nabiga waxaa sallallahu alayhi wasallam waxaa leeyahay wuxuu ahaa kaana ajwad annaas, midka dadka ugu deeqsi badan, wuxuuna ugu sii deeqsanaa bisha Ramadaan, maadaama bil khayr qabtay tahay. anagana inaan ku dayano mutaabacatu nabiga u baahan in khayrka qof walba intuu kari karo inuu baxsado. qofkii kari kara inuu qof saa'im ah afuriyana waa ajar weyn ku jiro inuu sameeyo ayaa qurux badan. maxaa yeelay nabiga sallallahu alayhi wuxuu leeyahay man fatara saa'iman kana lahu misla ajr غير أنه لا ينقص من أجر صائم شيء. qofkii afriya qof muslim ah oo saa'ima sooman, wuxuu leeyahay qofkaasi sooman ajarkiisa ajar la mid ah, waliba ana asagoon laga nusqaamin kii soomay ajarkiisa waxba. walaalkaaga muslimka afrisa isagana ajarkiisa soomku wuu leeyahay, adigana kaaga iyo kii walaalkaaga ajar la mid ah helaysaa. sidaas ayaa fadiilo weyn aad ku helaysaa. sidoo kale waxyaalaha sunnada ka mid ah inta badan ay dadku fududeystaan ama maalmaha hore aan lagu baraarugsanayn soomka waxaa ka mid ah in suxuurta la fududeysto oo qofku u dhaha maadaama uu la qabsanin xilli dambe ma soo kici karo, wixii haddana iska sii cunaya. bal ay kaga khayr badan tahay, kaga barako badan tahay inuu suxuurta xilli dambe cuno. maxaa yeelay nabigeena wuxuu leeyahay qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka. dadka ha suxuurteen, maxaa yeelay suxuurtu baraka ku sugan oo xilliga dambe ayuu nabigeena sallallahu alayhi wasallam tilmaamaya. marka acmaashaas iyo kuwa inta badan inaan ka faa'iideysan sunnooyinkaas inaan sidoo ku ilaalino. bishaan waa bil khayr qabto, wax walba wanaag ah inay kaga faa'iideysanay baahanta. maxaa yeelay acmaasha kale lama mid ah. الله سبحانه وتعالى وحولي لكل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أسي به. عمل والبو آدنه قد تأسوا أسقناده إلا الصيام صومك مويي فإنه محايلي فإنه لي وأنا أسي به. صومك أني أسكله أنا أول مريني. مرك رب الرحمن يا أول مركي سكوب اللنقاضي مرك إن أنكفى إيدي سنو نقضة غضا بي أخيرا أنكوك قويني وحيتهاي qeyrku waa la wada jecel yahay. sidaan ognahay dumarka muslimaadka ah inta badan bisha Ramadaan maalmaha hore taraawiix waxay xiiseeyaan. sidee doonta ahaatee waa arrin qeyr badan inay ka faa'iideystaan naftooda qeyrkaas ay ku noolaan bishooda loo baahan yahay. laakiin waxaa dhacda oo qurux badan inay iska ilaaliyaan ay fiican tahay. laga yaabay maalmahaasi inay caruurta hore usoo kaxeeyaan mashaajidkii ay soo buuxiyaan, laakiin masjidka marar qaar bal waxaa dhacday inay ku booqaan oo caruurtii ay xakameey waayaan, bal qeyrkii ay doonteen waxa ka duwan inuu meesha ka dhasho
oo walaalihii muslimaadka ragga ah tukanaya inay waswaasaan, meeshaas culays ka imaado. Marka waxaa u khayr badan inay gurigooda ku tuktaan. Haddii ay jeclaystaan ama ay doonaan inay walaalahooda muslim ragga ay la tuktaan, inay mashaahidka ileen wuxuu leeyahay shuruudo iyo waxyaalo badan oo qofka lagu baahan yahay inuu ka taxadaro inay ilaaliyaan. Akhiiran Ilaahay naga dhigo kuwii khayrka bishan barakaysan Ramadaan ka faa'iidaysta, oo Ilaahay noogu dambi dhaafo, caafimaad kuwii ku dhammaysta. Qof walbana oo walaalkaaga muslimka ah inaad u nasteexayso, iska cafiso, maadaama ay tahay bil qiimo badan. Insha Allah waxaan rajaynaynaa Ilaahay inuu wanaag iyo khayr iyo baraaro noogu dhameeyo, kuwii loogu dambi dhaafo acmaasheeda ka faa'iidaysta Ilaahay naga dhigo. Billahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.